السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaal kan wuxuu ku saabsan yahay qaybteeni labaad ee buugga dariiqa guusha kaasoo uu qoray Dr. Ibrahim Al-Fiqi. qaybtii koobaad waxay noo joogtay markay xaakimkii iyo wiilkii yara ay isheleen balse aysan wali wada sheekaysan markii ay ku kulmeen buurta dusheeda. qaybtani waa qaybtii ay sheekadu ka bilaaban lahayd. xaakimkii ayaa la hadlay wiilkii yara wuxuuna ku yiri wiilyahow ii waran maxaad doonaysaa? wiilkii yara waxaan doonayaa dariiqa guusha loo maro. xaakimkii ayaa yidhi hareerahaaga fiiri imika waxaad ku taagan tahay dariiqa guusha laakiin ma dareemaysid. waxaan kaloo ku weydiinayaa markii aad halkaan imaanaysay ma qorshaad ku timid mise waad iska imaatay? wuxuu ku jawaabay wiilkii yaraa qorshe ayaan ku imid halkaan. xaakimkii ayaa haddana wiilkii yaraa weydiiyey ma fikirtay oo camal ma samaysay? wiilkii yaraa haa. xaakimkii ayaa haddana su'aal weydiiyey wiilka yar oo ku yidhi ma leedahay aragti mustaqbal? wiilkii yaraa dabcan haa. xaakimkii ayaa weydiiyey wiilka yar haddana oo waxaad soo fuushay diyaarad oo waxaad timid waddan aanad garanayn adigoo og inay suuragal tahay inay wax walba dhici karaan? wiilkii yaraa haa. xaakimkii haddii aadan diyaarad heli lahayn dariiqo kale oo aad ku timaaddo ayaad raadin lahayd soo maahan? wiilkii yaraa dabcan haa. xaakimkii oo waxaad soo fuushay buurtan aadka u dheer adigoon garanayn meesha aad u socoto? wiilkii yaraa haa. xaakimkii markii aad timaadday dhowr mar oo aad i weyday maxaad dareentay? wiilkii yaraa waxaan dareemay niyadjab iyo walbahaar. xaakimkii miyaad niyadjabkaas u oggolaatay inuu ku maamusho? wiilkii yaraa maya uma oggolaanin inuu i maamusho. xigmad badanihii kadib maxaad samaysay? wiilkii yaraa markii hore aad baan u caraysanaa laakiin waan fikiray oo waan isdejiyey oo mar labaad ayaan shaqaystay lacag ayaan aruursaday waxaana go'aansaday inaan ku arko waxay doonta ha igu qaadatee. xigmad badanihii ayaa yidhi oo markii aad halkaan imaadday oo ay haddana kuu suurtoobi weyday oo aad dib u noqotay adiga oo aan waxba faa'iidin maxaad dareentay? wiilkii yaraa aad baan uga cara badnaa markii hore oo waxaan gaaray marxalad aad u murugo badan middaas oo sababtay inaan muddo waxba qaban kari waayo laakiin isma dhiibin. shaqadii ayaan dib ugu laabtay oo lacag baan aruursaday kadibna xaggaaga ayaan u soo safray waxaana ka baqaayay inaan ku waayi doono sidii aan ku fikiraayay ayayna u dhacday oo waan ku waayey. laakiin markii xigtay waxaan helay rajo aad u fiican oo ah inaan soo dhaqsado ballantana ka soo hormaro. markii aan kuu imid ee aan asbuuc fadhiyey ayaan waxaan naftayda ku idhi dhib ma lahan waad arki doontaa. laakiin waxaan ahay bini'aadam marmarka qaar waxaan dareemayay quus laakiin isma dhiibayn. markaasaan ooyey oohin aad u daran indhaha ayaana isku qabanayay oo xagga ilaahay ayaan u jeensanayay oo aan lahaa rabbigaygiyow. oo waxaan xasuustay qowlkii rabbi oo lahaa annagu ma luminno dadka dadaala camalkooda. maadaama aan shaqadayda wanaajiyey oo aan halkaan imid oo aan doonaayo inaan adiga ku arko markaasaan arkay gacantaadii oo garabkayga taalla. markaas ayaan waxaan ogaaday arrin aad u muhiima taasoo ah inuu ilaahay aad noogu dhow yahay oo ducadeenna aqbalaayo. xigmad badanihii ayaa yidhi waxa aad soo sheegtay oo dhan waa dariiqa sarraynta adiguna waxaad socotaa dariiqa guusha sida dadka kale oo dhan laakiin arrinkaa ma dareemaysid. waxay la mid tahay ruux ku nool reenrayn iyo sacaado oo haddana cimrigiisa ku dhuminaayo inuu sacaado raadiyo iyo kan ku sugan dariiqa guusha ee haddana raadinaya guusha. isaga oo hadalkiisii sii wata ayuu wuxuu yidhi waxa aad soo sheegtay oo dhan waa dariiqa guusha laakiin anigu waxaan iskuu kaa toosinayaa oo keliya sidii aad kolba isteeshin u mari lahayd ilaa aad ka gaaraysa guusha. marka anigu waxaan kaa caawinayaa sidii aad dariiqa guusha ku gaari lahayd ee inakeen. xigmad badanihii waxa uu fiiriyey wiilka yar indhihiisa oo wuxuu ku yidhi dariiqa guusha waxa uu ka bilowdaa sabab la'aanna waxba ma dhacaan. wiilkii yaraa ayuu weydiiyey oo ku yidhi maxaad doonaysaa? wiilkii yaraa waxaan doonayaa inaan noqdo mid meel sare gaara. xigmad badanihii ayaa yidhi jawaabtani waa mid caana waayo dadka oo dhan waxay doonayaan inay meel sare gaaraan laakiinse adigu himiladaadu maxay tahay? wiilkii yaraa ayaa yidhi himiladu maxay tahay? xaakimkii ayaa yidhi himiladu waa dhammaadka dariiqa guusha. marka adiga maxay tahay aragtidaada mustaqbal iyo dariiqaada dhammaadkiisa? wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay waxaan doonayaa inaan noqdo mid meel sare gaara. xigmad badanihii ayaa yidhi hadalkan horay ayaan kaaga maqlay haddii aad mar labaad ku celisana meeshaba waan kaaga kici doonaa waana kaa tegi doonaa
laakiin ii sheeg aragtidaada mustaqbal oo xadidan. oo hadda maxaad doonaysaa inaad noqoto ayuu ku yidhi. wiilkii yaraa, waxaan doonayaa inaan aas-aaso shirkad aniga ii khaas ah. xigmad badanihii ayaa yidhi, oo majaalkee ama qaybtee ayaa doonaysaa inay shirkaddaadu ka shaqayso? wiilkii yaraa, majaalka elektarooniyaadka. xigmad badanihii ayaa yidhi, oo waayo? wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, maxaa yeelay caalamka maanta waxa uu horay ugu socdaa horumar cilmi iyo mid xirfadeed. sidaa daraaddeed waxaan doonayaa inaan qayb ka ahaado caalamka horumaraya. waxaan doonayaa inaan noqdo mid horumar gaara, dadkuna ay ku daysadaan. xigmad badanihii, waa si fiican tani, waa aragtidaada mustaqbal. laakiin imise sanno kadib ayaad doonaysaa inaad xaqiijiso himiladaada? wiilkii yaraa wuxuu ku jawaabay, 5 sanno kadib. xigmad badane, oo muddadan 5 sanno ah maxaad qabanaysaa? wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, 5 sanno markay dhammaato waxaan rajaynayaa inay himiladaydu xaqiiqowdo. intaa kadib wuxuu ninkii xigmad badane ahaa bilaabay inuu wiilkii yaraa u sharaxo farqiga u dhexeeya himilada iyo hadafka socda wakhtiga go'an. xigmad badanihii, asaga oo hadalkiisa sii wata, waxa uu yidhi, wiil yahow si fiican ii dhegayso. maxay tahay faraqa u dhexeeya himilada iyo hadafka? wiilkii yaraa ayaa yidhi, ma garanaayo. waxaan u malaynayaa inay isku mid yihiin hadafka iyo himiladu. xaakimkii ayaa yidhi, dad fara badan ayaa aaminsan inay isku mid yihiin, laakiinse hadafku waa qayb ka mid a himilada. himiladuna waa dariiqa dhammaadkiisa. dadka intiisa badanna dhammaadka dariiqa inuu yahay hadafka ayay u maleeyaan, laakiinse isku mid maaha hadafka iyo himiladu. himiladu waa dhammaadka riyadaada, hadafkuna waa jaranjaradii aad ku gaari lahayd himiladaada. waana sababta ay dadka badankiisu ugu fashilmaan gaaridda himiladooda. maxaa yeelay ma kala saari karaan waxa uu hadda yahay iyo waxa uu doonayo inuu noqdo. taas ayaana keenaysaa inuu niyadjab ku dhaco. taas waxaa sabab u ah dariiqa oo dheer awgeed, laakiin kaasi waa dariiqa saxda ah oo aan doonayo inaad marto. iminka himiladu waa dhammaadka hadafka. tusaale ahaan, inaad mulkiso shirkaddaada. dariiqa koowaad ee sarrayntuna waa garashada sarraynta ama himilada, oo himiladii aad u jajabiso hadafyo, halkaasoo hadafba hadafka kale ku sii gaarsiinayo. hadaf kastana waxa uu qayb ka qaadanayaa sidii aad ku gaari lahayd himiladaada. hadda maxay tahay himiladaadu? ii sheeg. wiilkii yaraa ayaa yidhi, waa inaan yeeshaa shirkado la mid ah shirkadaha Dictor Nayaab oo kale. waa nin maalqabeen ah oo hami sare leh. xaakimkii ayaa ku yidhi, wiilkii yaraa, muxuu yahay hadafkaaga koowaad? wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, waxaan baran doonaa shay walba oo ku saabsan kombiyuutarka. xaakimkii ayaa yidhi, gartay. muxuu yahay hadafkaaga labaad? wiilkii yaraa ayaa yidhi, waxaan doonayaa inaan barto luuqadaha. xaakimkii ayaa yidhi, oo maxaad u baranaysaa luuqadaha? wiilkii yaraa, maxaa yeelay luuqaddu waxa ay kaa dhigaysaa qof buuxa oo isku kalsoon, dadkana way isku soo dhowaysaa. halkaas waxaa noogu eg qaybteennii labaad tixanihii buugga dariiqa guusha. intaan ku kulmayno qaybta xigta, waxaan idinkaga tegayaa nolol qurux badan oo sharafteeda wadata. waxaan hubaa inuu buugga noloshaada beddeli doono iyo qaabka aad u fikirto. fadlan sii faafi kanaalka, sabscribe, like and share. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.